بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaa inoo bilaaban doono cashiro ku saabsan caafimaadka. cashiradaas oo loogu talagalay in muraajaco ama revision ay u noqdaan ardayda caafimaadka. marka laba maado ayaan xooga saari doonaa haddii la yiraahdo. maadadaas oo ah anatomy and physiology, oo aas u ah qof kasta oo caafimaad baranaya inuu maadadaas u yaqaano oo si fiican u fahamsan yahay. anatomy waa qaab dhismeedka jirka iyo xubnaha jirka meesha ku yaaliin iyo siday u samaysan yihiin, iyo xubnahaas qaabka ay u shaqeeyaan ama iskula shaqeeyaan. markii taas aan fahanno ama qofka markuu intaas fahmo anatomy and physiology, kadib muhiim waxaa ah haddana qofka inuu barto medical terminology, erebixinta caafimaad. anatomy intaan barnayn waxaan arki doonaa ereyo badan oo caafimaad ah oo xiriiro. marka ereyadaasna gooni loo bartaa waxaa loo yaqaanaa medical terminology. marka qofka caafimaadka baranayo ama takhasuskiisa caafimaad wax la xiriira ka dhiganayo waa inuu marka aad u yaqaanaa ama waa inuu aad u bartaa anatomy and physiology iyo medical terminology. labadaas qofka markuu ku dadaalo waxay u horseedaysaa hadhow inuu maadadaas u baranayo uu fahmo. bilowna marka anatomy, weliba anatomy waa human anatomy, waxaana quseeya waa anatomy-ga bini aadamka. anatomy-ga xayawaanka kale iyo xoolaha iyo kale ma ka hadli doona haddii la yiraahdo. waxaan ka hadli doonaa anatomy-ga loo yaqaano human anatomy and physiology. marka waa maxay anatomy? marka what is anatomy? anatomy waxa loo yaqaanaa waa study of the structure of the human body. waa marka la baranayo oo la daraaseynayo qaab dhismeedka jirka, qaabka uu dhisan yahay jirka bini aadamka, qaabka uu dhisan yahay iyo waxyaaba uu ka kooban yahay. marka la baranayo maxaa loo yaqaanaa waa anatomy. marka anatomy marka la sheego closely related to wuxuu la xiriiraa physiology. markii la sheego xubintan qaabka ay u samaysan tahay marka laga sheekeynayo waxaa isla markii xiriir la yeelanaya oo aanan laga maarmin xubinta siday u shaqeysa in la barto. tusaale ahaan isha aan kasoo qaadno. isha marka la dhahayo qaab dhismeedkeeda marka la dhahayo ama qaabka isha ay u samaysan tahay iyo waxyaabaha isha ay ka samaysan tahay, that's structure, waa qaab dhismeed. marka qaab dhismeedka isha markii aad baratid waxaad ku qasban tahay physiology, qaabka isha iyo xubnaha ay ka kooban tahay, qaabka ay u shaqeeyaan inaad baratid muhiim u haddana. marka anatomy marka la sheego waxaa soo racayo waa physiology, ma kala maarmaan. physiology muxuu yahay markaasni? physiology-na waa barashada the study, barashada of the function, shaqada of human body, jirka bini aadamka. physiology waa qaabka ay u shaqeeyaan ama uu u shaqeeyo jirka bini aadamka, waxyaabaha uu ka kooban yahay, qaabka ay u shaqeeyaan. marka la baranayo maxaa loo yaqaanaa physiology. marka hadday markaan dhahayo muhiim waa maadadan qof kasta oo caafimaadka waxa la xiriira baranayo waxay tahay caafimaad. markaad baranaysid xubinta waa inaad taqaan horta kow, xubnaha jirka isku qaab maahan, isku qaab dhismeed maahan, isku waxyaaba kama koobno. that's why marka muhiim waxaa ah marka in la barto qaab dhismeedka. haddana qaab dhismeedka keligiisa laguma kaaftoomi karo, waxaa muhiim ah haddana in la barto qaab dhismeedkaas sida uu u shaqeeyo.
markii labadaas jirka biniaadamka qaab dhismeedkiisa iyo sida uu u shaqeeya markii qofku uu barto uu fahmo kadib markaasa waxaa ogaan kartaa jirka biniaadamka markuu caafimaad qabo xubnihiisa qaabkay u shaqeeyaan haddii uu cudur ama caafimaad dare ay imaatana maxaa isbedelayo waa in anatomy taqaana iyo physiology si arrintaas aa u fahamtid sidoo kale markii la daaweynayo cudurada oo qaab dhismeedka ama shaqada jirka markii wax iska bedelaan oo calaamadihii ay soo muuqdaan kadib daaweynta marka la daaweynayana waxay ku xiran tahay waa in xubinta qaabka u shaqeyso marka pharmacology ma fahmi kartid adigoo marka physiology anatomy adigoona baran that's why marka anatomy and physiology muhiim ay u tahay marka divisions meeqa qayb u kala baxaa anatomy divisions of anatomy meeqa qayb u kala baxaa kow gross anatomy maxaa loo yaqaanaa gross anatomy marka waa structures waa xubnaha ama qaab dhismeedka that can be seen with eye indhaha lagu arki karo qaab dhismeedka isha ay qaban karto marka la baranayo maxaa loo yaqaanaa gross anatomy tusaale ahaan murqaha oo kale qalfoofta oo kale camal waxaasoo dhan waa muuqdaan sooma waxa isha ay qaban karto taas maxaa loo yaqaanaa gross anatomy muscles iyo lafahi iyo various organs kada aan sheegayna kuwaas waa waxa muuqdo oo isha ay qaban karto taas maxaa loo yaqaanaa marka qaybtaas anatomy ka tirsan gross anatomy loo yaqaanaa waa loo yaqaanaa gross anatomy mid kale waxaa loo yaqaanaa anatomy qaybtiisa kale waxaa waaye waa microscopic anatomy maxaa loo yaqaanaa marka microscopic anatomy waxaa loo yaqaanaa waa markii la baranayo structures qaab dhismeedka that cannot be seen taasoo aanan lagu arki karin with eye qaab dhismeedka ishada aadan ku arki karin marka la baranayo maxaa loo yaqaanaa microscopic anatomy tusaale ahaan camal need to use waxaa loo baahan yahay microscope in la isticmaalo microscope sida unugyada jirka oo kale camal qaabka u samaysan yihiin marka la rabo in la ogaado oo la barto waxaa muqasab ah in la isticmaalo microscope oo isha caadiga laguma arki karo anatomy noocaas maxaa loo yaqaanaa waa microscopic anatomy tusaale ahaan cytology waa study barashada of cells unugyada markii unugyada la daraasaynayo oo la baranayo waa in la isticmaalo microscope sababtoo ah unugyada jirka biniaadamka way kala duwan yihiin unugyada waxyaabaha nool unugyada ay ka kooban yihiin waa kala duwan yihiin marka unug kasta qaab dhismeedkiisa sidee loo ogaan karaa waa in la isticmaala microscope ama weynayso anatomy noocaas oo kale waxaa loo yaqaanaa microscopic anatomy tusaale histology oo kale waa markii la baranayo study of tissues tissue waxaa loo yaqaanaa waa dhowr unug oo isku tagtay markii ayagana tissuedaas la baranayo maxaa loo yaqaanaa histology waana qayb ka mid ah anatomiga microscopic anatomy qofka biniaadamka what are you made of biniaadamku maxaad ka kooban tahay aan fiirino marka waa laba qayb elemental composition of a human body jirka biniaadamka elementiska ama curiyayaasha kiimikaad uu ka kooban yahay maxay yihiin koleyba elements markaa maqashid ama curiyayaal markaa maqashid ama canaasir markaa maqashid waxaa kugu soo dhacay chemistry oo chemistryga lagu soo barta marka curiyayaasha chemistryga lagu baranayo 100 iyo dhowr ka gaarayaan meeqa ayuu jirka biniaadamka ka kooban yahay oo curiyayaashaas ka tirsan 60% iyo labo waxaa waaye hydrogen jirka biniaadamka 26% waxaa waaye oxygen hawada loo yaqaano oo oxygen 10% waxaa waaye
carbon boqolkiiba 1.5 waxaa waaye nitrogen. intaan kale oo soo hartay meeqa element ya ka kooban waa calcium iyo phosphor mid kasta inta percentage uu ka kooban yahay. taas waxay noqonaysaa waa elements ka jirka bini'aadamka uu ka kooban yahay. maxaa ku soo haray molecular composition of human body, molecularada jirka bini'aadamka uu ka kooban yahay. dabcan element waxaa oo shayga ugu yar oo jirka bini'aadamka uu ka kooban yahay ama shayga ugu yar ee waxyaaba nool ay ka kooban yihiin waxaa la yaqaanaa waa element. The smallest particle of the living thing waxaa la yaqaanaa element. molecule maxaa loo yaqaanaa waa dhowr element isku tagta maxaa loo yaqaanaa molecule. marka molecularada jirka uu ka kooban yahay waa meeqo? boqolkiiba 67 jirka bini'aadamka waxaa waaye boqolkiiba 67 waxaa waaye waa biyo. boqolkiiba 20 waa protein jirka bini'aadamka, boqolkiiba 10 waa lipid, boqolkiiba 3 waa carbohydrate. marka fiiri muhiimadda ay leeyihiin. muhiimadda waxyaabahan marka la fiiriyo jirka bini'aadamka moleculeska uu ka kooban yahay shayga ugu badan waa biyo. marka sidaa darteed qofka bini'aadamka shayga ugu badan ee uu isticmaalo looga baahan yahay xitaa waa biyo. sababtoo ah jirkiisa biyaha u badan isticmaalkiisa marka waa inuu bataa biyo. shayga kusoo xigo waxaa waaye jirka bini'aadamka uu ka kooban yahay boqolkiiba 20 waa protein. marka jirka bini'aadamkana protein badan waa inuu helaa. boqolkiiba 10 waa baruur ama dufan, boqolkiiba 10 waa inuu helaa baruur fats ama waa inuu isticmaala carbohydrates ka fiir. marka carbohydrateska jirka uu ka kooban yahay waa boqolkiiba 3. jirka bini'aadamka carbohydrates badan ma u baahno. wuxuu u baahan yahay carbohydrate boqolkiiba 3. bariis iyo baasta iyo canjeere iyo muufi waxaasoo dhan waxaa waaye waa carbohydrates. ukunta iyo malaayga iyo hilibkana waa proteins. marka proteinka iyo carbohydrateska isticmaalkiisa marka waxaa jirka bini'aadamka isticmaalkiisa ku badanayo oo in la isticmaalo loo baahan yahay protein fara badan in la isticmaalo. oo carbohydrateska bariiska iyo baastada iyo waxaas la yareeyo maadaama jirka wax yar uu u baahan yahay. marka xikmadda ku jirto sawirkan ayaa waxay sheegaysaa ama xikmadda lagala bixi karo sawirkan waxay tahay shay kasta shayga uu ka badan yahay jirka bini'aadamka isticmaalkiisa ama baahida uu qabo way badan tahay. jirka biyo u badan yahay, biyo badan u baahan yahay. protein kusoo xigo, protein badan u baahan yahay. fat badan uma baahna jirka ama dufan badan jirka uma baahna. carbohydrates badanna jirka ma u baahna. si caafimaadka loo joogtay. marka waa study anatomy. anatomy maxaa loo baranaa? regional anatomy. regional anatomy maxaa loo yaqaanaa? waa study waa barashada one region hal qayb of the body jirka ka tirsan in la barto. tusaale ahaan qaybta jirka qaybtiisa kore in la barto kala camal. taas maxaa loo yaqaanaa regional anatomy. xudunta wixii ka koreeya oo caloosha iyo xabadka iyo madaxa iyo gacmaha intaas markii la baranayo bis oo lugaha aan balbaranin maxaa loo yaqaanaa regional anatomy. marka waa study of one region waa markii hal dhinac of the body jirka ka tirsan marka la baranayo waa at a time waqti hal mar. and learn everything about the region. iyo shay kastoo regionkaas ku jirana in la barto maxaa loo yaqaanaa regional anatomy. systemic anatomy maxaa loo yaqaanaa? systemic anatomy waxaa loo yaqaanaa waa study barashada of body system jirka bini'aadamka at a time hab dhiskiisa oo dhan in la barto waay. tusaale ahaan hab dhiska neef mareenka in la barto, hab dhiska dhiigga in la barto, hab dhiska lafaha in la barto, hab dhiska murqaha in la barto, hab dhiska neerfaha ama dareenwadka in la barto, hab dhiska maqaarka in la barto, system jirka in la barto. taas maxaa loo yaqaanaa waa systemic anatomy. jirka meel laga tagayo malahan macna. marka this is the approach. waxaa arrintan ama qaybtan dambe waa habka we will use aan isticmaali doono in this koorsada markaan baranayno. marka anatomiga aan rabno inaan anaga barano oo aan sharaxno waa qaybta dambe. marka regionalka shaqo kuma lihin oo qayb gooniya xoog kuma saarayno, qayb kalena kama aamusayno. laakiin waxaan sameynaynaa jirka bini'aadamka waxaan u sharxi doonaa
system ama habdhis. Marka anatomical organization, anatomiga qaabkee marka u habaysan yahay marka intuu ka bilowdaa qaab dhismeedka, maxaa ugu yar qaab dhismeedka, maxaa ugu weyn qaab dhismeedka jirka uu ka kooban yahay. taasaan baran doonaa marka. Kow, jirka bini'aadamka meesha koowaad ee uu kasoo bilaabanayo waxay tahay waa unug cells. Unugya uu ka kooban yahay jirka bini'aadamka. Unugya fara badan markay isku tagaan maxaa loo yaqaanaa tissue. Jirka wuxuu ka kooban yahay tissue fara badan. Dhowr tissue markay isku tagaan maxaa imaanayo organ imaanayo, xubin. Tusaale ahaan sida wadno oo kale, ishii oo kale, beerkii oo kale waa organ ka tirsan jirka bini'aadamka. Dhowr xubnood markay isku tagaan ama organ system badan markay isku tagaan maxaa loo yaqaanaa organ system. Ama dhowr organ markay isku tagaan maxaa loo yaqaanaa organ system. Sambabka waa organ, trachea waa organ. Markii trachea iyo sambabka iyo dhuumaha sambabka iyo marka la isku geeyo maxay noqonayaan habdhiska neef mareenka samaysmaayo. Marka dhowr system oo isku tagtaan maxay sameynayaan organism. Habdhiska neefta, habdhiska wadnaha iyo dhiigga, habdhiska lafaha, habdhiska muruqaha. Markii intaas oo guud jirka bini'aadamka system marka kan needanayo wadka kulli marka la isku geeyo maxaa loo yaqaanaa organism, qof nool samaysmaayo markaas. Tusaale ahaan sawirkan fiiri marka. Sawirkan wuxuu ka sheekeynaa organism samaysan soo ma organism samaysan. Organismka bini'aadamkana meequu ka kooban yahay system. Habdhiska maqaarka, habdhiska qalfoofta, habdhiska muruqaha, habdhiska dareenwadka, habdhiska dheecaanada, habdhiska wadnaha iyo dhiigga, habdhiska qashin saarka qayb ka mid ah oo qashin saaro, habdhiska neef mareenka, habdhiska dheefshiidka, habdhiska kaadiheysta iyo qashin saarka. Intaas oo marka organ systemska maxaa ka mid ah. Kow, integument, habdhiska maqaarka, habdhiska qalfoofta lafaha, habdhiska muruqaha, habdhiska dareenwadka, habdhiska dheecaanada, habdhiska wadnaha iyo dhiigga, habdhiska macnaha oo lymphatic system loo yaqaano, qayb qashin saarka ka mid ah oo jirka sunta ka saarto, habdhiska neef mareenka, habdhiska dheefshiidka, habdhiska kaadi mareenka, habdhiska taranka. Intaas aan soo qaadane waxay noqonayaan waa 11 habdhis. Marka mid kastoo ka mid ah waxaan baran doonaa muxuu ka kooban yahay, qaab dhismeedkiisu waa sidee. Haddana isla markii waxaan sii baran doonaa sidee u shaqeeyaan xubnahaas ama habdhiska siduu u shaqeeyaa, shaqadiisa maxay tahay. Marka muhiimadda markaas ayay noqon doontaa, labadaas ayaa xooga saari doonaa. Tusaale ahaan meesha waxaa ka muuqdo qof bini'aadam, anatomical position loo yaqaanaa. Jirka bini'aadamka oo kooban markuu sii jeedana waa qaabkaas. Jirka bini'aadamka wuxuu leeyahay marka qaybtan hore maxaa loo yaqaanaa oo soo xigto anterior, qayb dambe posterior. Markastoo madax la dhawaado maxaa loo yaqaanaa cranial. Markastoo hoos la dhawaado maxaa loo yaqaanaa caudal. Jirka bartimihiisa maxaa loo yaqaanaa medium. Jirka markii bartamaha markii dhinac marka loo qabto maxaa loo yaqaanaa lateral. Bartamaha jirkiisa markii wixii ka fog maxaa loo yaqaanaa distal. Wixii jirka xubinta meesha ka bilaabanayso maxaa loo yaqaanaa proximal. Xubinta meesha ka bilaabanayso maxaa loo yaqaanaa proximal. Meesha xubinta ku dhamaanayso maxaa loo yaqaanaa distal. Dhinacan waa bidix, dhinacana jirka midigtiisa waa.
jirka qaybtiisa kale maxaa loo yaqaanaa superior, jirka qaybtiisa hoose maxaa loo yaqaanaa anterior inferior. tusaale ahaan fiiri, qaybta madaxa maxaa loo yaqaanaa cranial, qaybta hoose xigta maxaa loo yaqaanaa caudal, qaybta kor xigta maxaa loo yaqaanaa dhabarka xigta dorsal, qaybta horena ventral, xubinta bilowgeeda proximal, xubinta meesha ku dhamaanayso distal. jirku wuxuu leeyahay qaybo iyo jeexdin